ismaqal aragti wanaagsan daawadayaal halkan waa janalka gunta wararka kusoo dhawaada wararka maanta aan idiin haynana waxa ugu dooroon al-shabaab oo duleedka magaalada muqdisho ka sameysay xarun ay ka qaadaan canshuuraha xog ku saabsan ayaan idiin haynaa sidoo kale qodobadaan idiin hayno oo aad warkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa dhaliilay tayada aqoonta macallimiinta dalka warbixin ku saabsan ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale daawadayaal wararkaan idiin hayno waxaa ka mid ah taabid cabdi maxamed duqii hore ee magaalada muqdisho ayaa baaq culus waxa uu diray madaxda dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu yahay baaqaas warkeena ayaad ku daawan doontaan sidoo kale dagaal culus oo xalay ka dhacay duleedka degmada Afgooye ayaa qayb ka ah warbixinada maanta aan idiin haynay u diyaar garooba warkeena oo dhameystiran intaas waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu dooroon haatanna u diyaar garooba isagii oo dhameystiran waa 5 bisha 9 sanada 2019 haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe saar si aad u heshid macluumaad degdeg ah oo la xaqiijiyay waxaan ku bilaabeynaa al-shabaab ayaa duleedka magaalada muqdisho ka sameystay xarun canshuur qaadis ah iyadoo bilihii ugu dambeeyay al-shabaab ay kordhiyeen canshuuraha ay ka qaadaan shacabka ku nool magaalada caasimadda ah ee muqdisho baaritaan lagu sameeyay hanaanka canshuur qaadista shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa lagu ogaaday halka uu ku yaalo saldhigga maaliyadda al-shabaab oo ay ugu yeeraan dadka ku cusub nidaamkooda oo ay diiwaan geliyaan al-shabaab ayaa saldhig maaliyadeed ku leh meel 15 kilomitir u jirta degmada Daynile ee gobolka Banaadir waxaana halkaas ugu taga qof kasta oo ay u yeeraan si ay ugu waajibiyaan canshuurta billaha ah qof ka mid ah dadka maalmihii ugu dambeeyay ay al-shabaab u yeereen ayaa xaqiijiyay saldhigan dhinaca kalena wasiirka wasaaradda waxbarashada Goodax Barre ayaa dhaliil waxa uu jeediyay tayada waxbarashada macallimiinta dalka wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ka hadlay heerka waxbarasho ee dalka isagoo sheegay in tayada macallimiinta dalka ay aad u liidato ayna u baahan yihiin tababaro ay kor ugu qaadayaan xirfadooda wasiirka waxbarashada ayaa sheegay in imtixaanka ay ka qaadeen macallimiinta dugsiyada hoose dhexe ay ku ogaadeen in 22% kaliya ay u qalmaan in ay macallimiin noqdaan ayna u baahan yihiin inta kale in wax la baro Cabdullaahi Goodax Barre wasiirka wasaaradda waxbarashada oo ka hadlay manhajka dalka waxa uu sheegay in dawladdu ay dhameystiri doonto manhajka dalka waayahay weli waxaad naga daawanaysaan janalka gunta wararka fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar si aad u heshid macluumaad degdeg ah oo la xaqiijiyay duqii hore ee magaalada muqdisho ahaana gudoomiyihii gobolka Banaadir taabid cabdi maxamed ayaa baaq u diray madaxda dowladda federaalka Soomaaliya kuwada ugu sareysa gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir taabid cabdi maxamed ayaa ugu baaqay in si degdeg ah loogu gurmado dadka Soomaaliyeed ee hantidooda lagu boobay dalka Koonfur Afrika war qoraal ah oo uu taabid cabdi maxamed soo dhigay bartiisa Facebook ayaa waxa uu dowladda dhexe ee Soomaaliya kaga dalbaday in ay dadkaas la caawiyo sida ugu dhaqsiyaha badan naftooda iyo sidoo kale maalkoodaba ugu dambeyntiina dagaal culus ayaa xalay waxa uu ka dhacay duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose dagaal xoog leh ayaa xalay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa al-shabaab waxa uu ku dhaxmaray duleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose al-shabaab ayaa wadada u galay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo marayay deegaanka lagu magacaabo Cumar Dheere oo dhaca duleedka degmada Afgooye ciidamada ayaa la sheegay inay ku wajahanayeen deegaanka Sabiib isla markaana gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan kadib ay weerar jidgal ah ku qaadeen dagaalyahano ka tirsan al-shabaab dagaalka oo socday in ka badan saacad ayaa xalay deegaankaas waxa uu ku dhaxmaray labada dhinac waxaana ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac walow aan ilaa iyo hadda la xaqiijin karin tirada rasmiga ah ee dagaalkaas waxyeelada uu ka soo gaaray intii uu socday dagaalka ayaa askar ka tirsan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ay gurmad ahaan ugu baxeen degmada Afgooye
waxaana halkaas ay ka soo qaadeen askar ay waxyeello soo gaartay oo ku waxyeeloobay dagaalka, kuwaas oo ay soo gaarsiiyeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Warkii oo aad kala socoteen janalka Gunta Wararka waa inaga intaas. Si aad u heshid macluumaadkeena, fadlan subscribe-ka inagu dhiirigeli. waad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka warkeena.